بسم الله الرحمن الرحيم waxaan ka hadlaynaa daweynta cudurka tarakooma sidee loo daweeyaa tarakooma sida xagan ku cad waxa jirta qorshe ay u dejisay WHO strategy oo loo yaqaan safe taas oo laga soo gaabiyay after surgery and antibiotics after facial cleaning and environmental in la horumariyo sida xagan ku cad sidee loo sameeyaa surgery waxa lagu sameeyaa cudur loo yaqaan trichiasis kaas oo keena in eyelashesku ay gudaha u laabtaan waxa loo yaqaan misdirection of eyelashes taas ayaa lagu sameeyaa in la gooyo eyelasheska ayaa laga jarayaa si aanay u saameyn cornea isha si cudurkan qofka looga daweeyo waxa soo raacday antibiotic oo ah daweyntii jeermiska waxa loo isticmaalaa dhowr hab oral azithromycin kamid ah oo afka laga siiyo 20 mg taasoo lagu tilmaamo azithromycin inay tahay dawooyinka ugu safesan ee la siiyo xataa ilmaha yar ee ka yar 6 bilood iyo haweenka uurka leh dhamaan waxa sidoo kale jirta dawo loo yaqaan tetracycline ointment 1% oo 2 jeer maalintii la siin karo muddo 6 usbuuc ah sida ku cad sawirkan waxa jirta qorshe loo yaqaan facial cleaning in wajiga si fiican carruurta looga dhaqo biyo nadiif ah oo saabuun ay ku jirto si sawirkan ka muuqda ayadana waa muhiim environmental improvement jirta in la horumariyo deegaanka nadaafadu si cudurkan wuxuu ku badan yahay meelaha dadku ku badan yihiin ee wasakhda aad u leh inay helaan dadku biyo nadiif ah si looga hortago cudurkan because waxa keena cudurkan biyaha wasakhda leh iyo biyo la'aanta qofku markuu waayo biyo ku dhaqo wajiga in laga hortago ama la kantaroolo duqsiga ama tixsiga kaas oo cudurka gudbiya haddii aan asaga la kantaroolin wali cudurka u jiraya mahadsanidin